mudana gudoomiye dokumentiga SKA waxa iga soo qaaday maxaa la macalmahdi iyo xiraaliyaha dokumentiga inta lama keen reedib la keenay dokumentiga SKA waa maqan yahay ilaa uu gaar heer uu yahan jabo oo dhaho hadii dawladda aad xil dawladda igu faanaysid anigana dawladda igu jira inta dhowraha guud qaranka wuxuu email u diray immigration-ka asoo kambaniyashii aan baarayay sideena ninka kambanigaas maxaa la SKA mas'uulka ah ee yahan jabay iyo guutaale waa qaraabo ilma adeer xafiiskaygaan geeyay waa wada hadalnay waxay ugu reeyeen dokumentiyada xafiiska ay yaalan si aniga markii dokumenti xafiiska yaal qofka u sheegtay macluumaad ma aqaan waa garowaay shirkadahaas SKA waxaan u diray email 6 bisha April sidoo kale waxaanan maxaa la weydiiyay inay ii keenaan sideed ba dokumentiyo xafiiska taalayna ii keenaan sidii lacagta ku bixiyeen waxaan bilaabay inaan hubiyo horta dokumentiyada loo baahan yahay in la xaqiijiyo waxa ii soo baxday 8 company in baaritaan lagu sameeyo si loo hubiyo dokumentiyada maadaama listiga aan laheenin erika keen la bedelay shirkadda Reed waxa u diray 4 bishii April waxa u diray email aan ku leeyahay 22 baasaboor xafiiska taala kaararkoodina aan ka shakisanahay si aan u hubino adeegiina kugu qaban waxa u baahanahay in rasiidadii dawladda lacagta aad ugu bixisay inaad xafiiska keentiin markii way ii yimaadeen company-ga waxay ii sheegeen inaysan haysanin wax dokumenti ah oo cadeynaya in lacagta ay bixiyeen waxaan kala kulmay caqabad aad u badan oo la xiriira arintaas 6 email u diray company-gaas ilaa dad wasiir ah oo dawladda xilal ka haya ay ila soo xiriiraan oo ay dhahaan arintaas maxaa la haye waxa sameeyay kor oo bax kale xoog company-ga taabanin anina waxa uu sheegay waajibaadkayga inaan gudanayo oo ay macquul lahayn inaan sinaba uga leexdo arintan company-ga markay dokumentiyadaas waa dokumentiyada xafiiskayga laga soo qaaday oo maxkamadda lagu wareejiyay dokumentiyadaas waxay isugu jireen 2000 int markii aan bilaabay email markay dhaheen ma heesano 22 baasaboor kaararkooda rasiidadooda waxaan u diray email kale oo aan ku hubinayo dadkan horta maadaama ay lahayn ma heesano rasiid ahayn in la xaqiijiyo dadkan sharciga waddanka ku joogaan email kale u diray waxaan ku yiri 2022 waxa keentiin dokumentiyada dawladda siisay oo aan u kala saarin work permit visa dokumentiyadaas ma dokumentiyada ii keeneen oo iskugu jira work permit visa haddana waxaan jeclahay maxkamadda lagu wareejiyo visa kaliya work permit-kiina xafiiska xalaalinta la weydiiyaan badan waxaa jirta laba shirkad lagu dhaho Deeq Construction iyo shirkad la dhaho maxaa la dhahay SKA shirkadahaas SKA waxaan u diray email 6 bisha April sidoo kale waxaanan maxaa la weydiiyay inay ii keenaan 8 ba dokumentiyo xafiiska taalayna ii keenaan sidii lacagta ku bixiyeen waxay email ii soo jawaabeen 7 bisha waxaan ii sheegay inay iimaanayaan oo dokumentiyadii aan u baahnaa ii keenayaan xafiiska ugu yimaada ninka mas'uulka ah company-ga oo company-ga ajaanib askar laakiin mas'uulka ah Soomaaliya jira oo useful ugu magacaabo xafiiska ugu yimaada wuxuu ii sheegay inuusan haysan wax dokumenti ah email-kan u diray haddana waxa ku jiray inay ii keeno 2022 dokumentiyo dawladda ay siisay oo lagu xaqiijinayo dadka ajaanibta oo company-ga u jooga wax sharciyada waddanka ku joogaan wuxuu ii keenay half kamid ah 2022 wuxuu ii sheegay half ka dhiman uu keeno doono waxa kale oo ii sheegay 8 dokumentiyo xafiiska yaala inuusan u haysanin wax dokumenti ah marka wani xafiiska joogay wuxuu isku dayay inuu igu qanaco in adeega loo qabto oo laga dhaafo waxaas waxaan ku iirinayo ma awoodi karo waxaas sameeysaa wixii aan ku faray sameey oo dokumentiyada lagu diray keen si adeeg loogu qabto waan isku fahmay arintaas muddo saacada wada joognay ilaa uu gaar heer uu yahan jabo oo dhaho hadii dawladda aad xil dawladda igu faanaysid anigana dawladda igu jira waan iska celnaa waxaan ku yirinayo ani sarkaal awoodi sarkaal dawladeed ahay waajibaadkii gudanaya waxaan ka rabaa aniga waxa ka hadlaysa meesha ma yaalaan dokumentiyada aan ku weydiiyay keen si adeeg loogu qabto marka isbuuc kadib waxa ay la soo xiriiray qof ii sheegay inuu ka tirsan yahay company-ga SKA dokumentiyadii aan ka sugaayay wada waxaan joogay airport-ka qaybta international arrival shaqo ugu jiray waxaan ku yiri xafiiska ma joogo marka xafiiska imaada kula soo xiriira xafiiska marka imaadaan waxaan ku dhax xafiiska jooga email xafiiska marka imaada waxa ii imaaday macluumaadii qofkii soo wacay oo liigu sheegay inuu nabsuudi ka tirsan yahay oo isku keenay company-ga ka shaqeeyo
iyo xeraaliye maxaa la dhahay farxaan kadib waxay ugu dhaheen xafiiskaagana geey xafiiskaygaan geeyey waa wada hadalnay waxay ugu dhaheen dukumentiyada xafiiskaaga yaalana sii aniga markii dukumenti xafiiskayga yaala qofka u sheegtay maclumaad ma aqaano waa garowaay marka waxa isku kay xirmatay arrintii ahayd waa iska kaa celinayo iyo maxaa la amuurahaas dabadeed maclumaadii waxaan ku yiri wuxuu yiri waa xiran tahay waxaana iisoo kaa diray dhowraha qaranka isla waa bari jooga waa ku geynaa laakiin waxaan ku yiri niyo sarkaal booliis ha tahay haddii ay xiraysid waxaa rabaa waaran maxkamadeed ma wata maxkamadda dalkan ka jirta aniga sarkaal dowladda u shaqeeya xafiiska ay ugu timid haddaa ay xiraysid oo sharci ah wadatid diyaar u ah inaa ku raaco wuxuu yiri shaqadeedii ku ciyaarin aniga shaqaale ii soo diray shaqadeeda ku ciyaarin nabadniyo way soo raacnay gaarigiisa soo saaray proofta ah saliga imaanay waxaan u imaaday cabaar kadib waxaa imaaday guutaale iyo xeraaliyaha qaranka waxaana i wareysteen waxay u dhaheen kambanigan riib la dhaho iyo kambaniga SK maxay guutaale ay weydiiyey waxaan ku yiri si email u dir kambanigan baaraay saasaan u baaray waa iga aamusay dabadeed Stoneberi kadib markii la soo qabtay inta dhowraha guud qaranka wuxuu email u diray immigration-ka asagoo kambaniyaashii aan baaraay sii deynay ninka kambanigaas maxaa la SK ee mas'uulka ah ee iyahan jabay iyo guutaale waa qaraabo ilma adeer markee waxaan la yaabanaa waxa waaye in maxaa la dhahay macnaha qof lii soo diro iska dhigo shirkad adeeg loo qabanayo dabadeedna si qasab ah oo aan sharciga waddanka qayb ka ahayn lagu soo xiro oo waaran maxkamadeed aan lagu soo xirin waxa kaloo la yaabanaa waxa waaye in kambaniyaashii ani aan baaritaan ku hayay oo hubinaya sharciga iyo nidaamka inay u hoggaansan yihiin oo dukumeenti sax haystaan in la fasaxo markii la soo xiray kadib 10 maalin kadib markii la soo xiray in la fasaxo waxa kaloo la yaabanaa waxa dukumeentiyadii aniga aan baarayo xafiiskayga laga soo qaaday in ani loogu eeday inaan sameeyay oo cadeema u hay email-ladii dhammaan la wadaagay tolkana la wadaagay xiraalintana aan la wadaagay mudane gudoomiye dukumeentiga SKA waxa iga soo qaaday maxaa la macluumaadii iyo xiraaliyaha dukumeentiga inta lama keen read bisa la keenay dukumeentiga SKA waa maqan yahay waa dukumeentiga aan baarayo xafiiskayga laga soo qaaday raaliyaha mudane gudoomiye waxa kaloo jirta shirkaddan lagu magacaabo Dark Construction oo rasiid 3 rasiid oo maalin loo inta laga soo gudbiyay oo lagu eedinayo wasaaradda shaqada shaqaalaha company wuxuu kamid ah dukumeentiyada aan xafiiskayga laga soo qaaday company-gan iyo keenay dukumeentiyada